caafimaadka maanta aad haysid maalin buu yaraani doonaa yaraan oo la odhan doonaa kelli baa xanuunaysa macaan buu yeeshay dhiikar buu yeeshay dhag baa xanuunaysa ilgaws baa ka xanuunaya maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana maalin bay isdhibi doontaayo ogow ood noqon doontaa 80 jir oo maqalka isdhimi oo aragga isdhimi ood odhan doontaa kan kumuuhaa baad odhan doontaa hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlayee markaad tallaabsanaysana tallaabada aayar baad u qaadi doontaa waa goorma waa markuu qofku da'diisu ay wanaato jilco weeyaan haddaad nooshahay maanta faraaqaad nolosha ka faa'iidayso waayo maanta arlada dusheedaad socotaa laakiin barritooda kulligeen waxaan geli doonaa arlada dhexdeeda alam najcal alarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay miyaanan bini'aadanka dhulka ku fullaysiin keenna dhintayna dhulkaa unbuu ku dhex jiraayoo dhulkaa haya keenna maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda dhulka markaad socoto markaa sideed u socon sideed socodka xor ma u tahay may ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa arlada dusheeda marka aad socoto ina aadano kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa ilaahay yidhi haddaad arlada korkeyga markaad socoto kibir iyo maaragtaane khuyalaa aad u marto ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid dhulkana ku dillaacin maysid buurahana dharar ma gaadhaysid baa ilaahay yidhi bani aadam baa tahay xaariya kaadilaa oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baad tahee ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu le dhulka aayar u dul soco aayar oo mu'miniinta waxaa lagu ammaanay aladiina yamshuuna cala alardi hawna arlada korkayga markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar ma ordaan ma degdegaan isma qalqalluuciyaan cid kale kuma daydaan aayar bay u socdaan aayar waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliinta meelahaa fadhida markay la hadlaanna waxay ku yidhaahdaan qaaluu salaama nabad baad naga heshaan annaga nabad baad naga heshaan meel xun fadhiisan maayaan si xun u soconi maayaan wax xun maqli maayaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin maqalkaaga meel xun ha dhigin araggaaga meel xun ha ku eegin qalbigaaga iyo caqligaaga wax xun ha kaga fikirin socodkaaga meel xun ha marin ilaahay baa kula